gabadha xis maxamed xaaskayga bay ahayd waan isqabnay asxaabiisa la socda arrinkaasina qalad ahayd buu ahaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنو وناكسنا غيرتي إنه بحر إذن كيما ملكستو جوجتان حلي كستي وقتي كستي إذن تهي habeen bay tahay habeen wanaagsan muuqaalkan gaarka ahi waxaanu kaga hadlaynaa guurka baataas baraha bulshada qabsaday guurkii lagu tilmaamay barankiga oo dhaboobay bariye isjiijiida iyo isqabqabsi fara badan kadib maanta ayaa waxa uu soo dhigay baraha bulshada uu ku leeyahay Idris Dabcasar inuu qirtay in ay tahay gabadha tani xaaskiisa balse qirashada ka hor ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray in ay ahayn xaaskiisa isla markaana uu yahay baranki. Waxa uu yiri ma tihid xaaskayga. Xiis xarago oo la yaabtay arrinta halka iska qaban weysa ayaa waxay raadisay cadeemo sidoo kale waxay gaartay dukumeenti cadeena ayay soo dhigtay baraha bulshada ay ku leedahay kaasi ay ku cadeynaysay inuu ahaa saygeeda. balse sheekadu waxa ay qurantay kadib markii dadku ay ka shakiyeen in kirmaada intaasi la eg waxaan maqli jiray adduunyo joogo maxaa aragti ku laaban waxba salag leh baraha bulshada maalinba maalinta ka dambayso waxaad arkaysaa waxyaabo ka dardaran iyo gabood fallo garayay dheeraa oo u geystay xaaskiisii ilmihiisii hooyadu iyada oonan maxaa la yiraahdaa gaf ah meel ka dhac ah oo gabdhaha loogu geysanayo isla markaana bulshada lala wadaagayo. dabcan arrintan murugada leh xiis xarago iminka dib ayay u dhacday oo waji kale ayay yeelatay balse inta aysan wajiga kala yeelan xiis xarago oo ka hadlaysa isla markaana oohin afka furatay aan codkeeda ugu maqashiyo kama gaaro waxaan rabaa inaan qiso yar idin wadaago aniga igu dhacday qof kastaaba nolosha qiso ka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا كانت السلامية هذا البطن كما قالوا وحربا إن القصير إذن وذابو هنيجي يقول عضي قف كستاب النور شقيسو كشاكية نيو أرسدو أكتهين وانقول السدين المدوية توليبا أرنكي سوشيال ميديا يراقب صدي كدب أرن كلاسيك لو دعاي قف كستاو دمر أما هاي سوعاي أما هاي سواف لقاديو وحاد سلعي بيسي نيو أني قف كورتي عاي يوقف كيبوك في معنى لقتين هاي أنا هايستا وبقص بحبا من قبصاني وقف كاسو بسكا كيسوا عاي وحويا ويلبان سكو سنين إدريس دبعسر وعديميهين حتى ضفر كارن كاو ضفري المحكمة تنتهي يعني وسلقلنا هذا البدن إيمو قلاني ستيك توك توينا ندي كودي كارسيو لكن وانا جندر مرياهم أنا waan guursaday markaan guursaday nolol qiyaamo ku dhisan baan ku guursaday nolol waxaan ku guursaday ilaahay alla kaashaday oo u samray oo si walba u qaraaraatay aan dhabarka u rutay oo u dulqaatay oo u samray noloshii markii aan halka u dambeysay maray ay waji kala yeelatay family baan soo kala dhaxgalay waan isku yara kululaanay adigu alla kuma samadarnaaday mar kale waxa soo dhan idinka sheekeynaya arrinkii guurkayga baan soo dhigtay oo dhab ahaade u jiray inankii baa soo beenay dadkii qaar ku lahaa ama ku dhawa prank ama tii adduunka dhicid intuu waanigii hanjabiyey ama uu lahaa dadka isagu ku lahaa waa prank waxaa halkaa maanta iga oheysiinaya ama intuu soo istaajiyey maaha inaan leeyahay wiilkii baan jecelahay wiilkii iyo doon waxa weeyaan inaan leeyahay isla sharaftiisii buu dhowrtay anigana cimaamadii buu iga rid ma rabo magac ah inuu ii baxo gabadhii ninka sheegan jirtay maaha aniga waa lay gursaday aabahay wuu nool yahay aabahay aniga hooyaday baa dhimatay aabahay waa xay walaalahay way joogaan waan gursaday iyadoo la wada og yahay wiilkii intaa wixii ugu sameeyay maaweela iyo wixii ugu waday isagoo intaa leeg aan ku qabo ayaa dana social media iga ceebay maanta oo taariikhdu tahay haddana oo arrinkaas halka marayna wuxuu taagan yahay warqadaadi baan diyaar lahay mar rabo inaan dadka la cadeeyo adiguna dadka ku dhawa prank saas shakadu hay naga dhamaatay warqada ku qaado daanu maanta mar rabo in taariikh xuniga hadho in magac xuniga hadho in
hadho ma jecli. dhinaca kale qirashada uu qirtay Idris Dabcasir ayaa bulshadu waxay aada u soo dhaweeyeen isla markaana ku tilmaameen in ay tahay mid markaasi dhibkii iyo tuhunkii loo maleynayay gabadha kaliya inay sheeganayso guurka isla markaana bulshadu ay u fasirteen gabadhii ninka sheeganaysay sida ay sheegtay magacaasi xun oo u baxana ay aada uga dhiidhisay oo hina ay afka furatay. social mediaha dhacdooyinka noocaan ah ayaa waxa ay yihiin waxyaabo ummadda ay la anfariiraan isla markaana habeen iyo maalin lasoo dhigayo muuqaalo sawiro codad markaasi lagaga naxayo arrimaha qoyska ee ka dhex taagan baraha bulshada. arrimihii qoyska ka dhex taagnaa caqabadaha loo xallin jiray sidii hoose ayaa iminka waxay noqdeen kuwa laga xaliyo social mediaha. maxkamadeyntu waxaa la leeyahay bal ra'yigaaga ka dhiibo. sidoo kale waxaa markaasi garnaqaya dadka ku xiran baraha bulshada oo isugu jira culimo iyo caamo, dad aqoon u leh, dad aan aqoon u lahayn, dad isla markaana iska caadifadeysan, dad siyaabooyin kala duwan u taageeraya arrimaha markaasi socda. guurkan barankiga loo ekeysiyey isla markaana Idris uu ku tilmaamay inuu ahaa baranki ayaa iminka meesha ka baxaya isla markaana sheekadoodii sheegashada ahayd ee guurka xiis xaraga wuxuu noqonayaa mid run ah, taasi oo bulshadu ay ka yaabeen in kirmaada intaasi la eg uu xaaskiisa ku dafiray Idris Dabcasir. gabadha xiis maxamed xaaskayga bay ahayd una soconnay asxaabiisa la socda arrinkaasina khaladahay buu ahaa. gabadha xiis maxamed xaaskayga bay ahayd una soconnay asxaabiisa la socda arrinkaasina khaladahay buu ahaa. official ayaa nagala socotaa. si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa iminka waxay noqotay in caqabadii xal loo helay isla markaana guurkii barankiga la mooday uu meesha ka baxay. social media haddii aad joogtay dhacdooyin noocaan ah iyo kuwa ka daran oo ka naxdin badan ama lala yaaba ayaa soo dhacaya xilli walba, mar walba, saacad walba, codad, muuqaalo anshax daran iyo wixii la halmaan ah ee naxdinta leh ee dadku raadka xun ku reeba sida inkirmaada guurkan oo kale ee gabadhan xiis xaraga fanaanada ayaa waxay noqotay mid bulshadu ay aada ula anfariireen. si kastaba ha ahaatee qirashada iminka oo uu qirta guurka gabadhatan ina Dabcasir ayaa waxay noqonaysaa mid ay bulshadu qaar ay soo dhaweeyeen iyagoo ay ku tilmaameen in markii horeba ay ahayd hadii ay jiraan guurka dhex maray inuusan gaashaanka u daruurin ama uuna ku tilmaamin baranki. fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay la wadaag asxaabta anigoo Shukri Xasan ayaa idin la socodsiinay. waaga qodob kala dhiman ninka qurux ku dhelika oo qarribaya naagaha qaydimeeya lama rabo warku inuu qaboweyahay ayay qiimo badan ku leedahay ahaane qadafka ya xumaatida iyo qadkiyada iyo qursiga qaylahiira lama rabo waa ku qaldarowda oo qaarka waa